dibadda markuu cable-ku marayo you must be protected kan iyo kii burburayay midna maaha kii burburayay iyo kan isku mid maaha kan wuu jirayaa 40 years buu ku jirayaa kaasina 3 sano u shaqeeyaa 3 years kaliya niman baa halkan ka shaqeeyay ila shaqeynayay aan Chinese soo xidhan cable-kay gooyeen waxaana mamnuuca in cable-ka la jaro ma laakiin dayleen wali waa nimanka magaalada ugu xariibsan ma isla xoog u shaqeeyaa way sakali marka dumaan ugu wada qabto dumaan uu jeegaray marka tool baan siyaadu bahaaga ugu wacay laakiin this the main problem kay sameeyeen in cable-ka la kabaa waa xaraan halka mar uu ka baxo inuu halka tago meeshu doono tago hoos maro meeshiisa uu tago way ma aha in la gabo oo dib loo geysto marka imkeen gooyeen baad aragtaa halkana iyagu si kale u xidheen kana waan qabtay oo way jareen damaartid kana si khaldan bay u jareen ma ahayn jaraan dadka aan balagaray ana ka qabtay marka unit-kani waa unit-kanu sheegaynay ay silaalinay marka imku waxaanu eegaynaa live keena R1 iyo R2 waxaanu ka soo hadalay big R1 iyo big R2 labadaasaynu tasgaraynayna waana nin kasta oo electrician uu sameeyo weey maxaan sameynayaa iminka waxaan wataa this machine waxaan eegayaa cable-kayga resistance waa imka waad aragtay 99 ama 00 waxa weeyaan is open imka deetana waxaan eegayaa cable-kayga live-ka iyo neuter-ka iyo live-ka guriga ku wareegaya intuu resistance-kiisu yahay inta resistance-kiisu yahay marka xaggan imka waxaanu ka gelinay R1 iyo R2 gaanu isku xidhnay deetana marka waxaan eegaynaa resistance-kan uu gudbinayo in marka ka xidhan yahay halka resistance-ku inuu ka gudbinayno waa xagga uu iskaga keen xidhan yahay resistance-keenu eegaynaa وتاس garanaya weeriya dad soo dhawaato way misoomis wala biyo sodono ayuu ku leeyahay resistance-kaagu weeyo waataynu ka hadlaynay waxaanu tagaynaa kan same baynu samaynaynaa fariyo sodono marka waa red shell way isku wada xidhan yihiin ka u dambeeyaan tagaya the last one oo maqsinkeenu joognaya marka imku waxaanu xidhnay register cycle baynu xidhay marka ka ugu dambeeyaan tagaya all the resistance waad ogtay markuu fogaado cable-ku dheeraadaba inuu resistance-kuna up noqonayo waa kaygii ugu dambeeyay final circuit weeye wuxuu soo marayaa 1 2 3 4 waa kii shanaad little R1 big R1 and big R2 ka ugu dambeeyay soo kordhay soo maartay resistance-ka kordhay marka hore muxuu ahaa 30 34 maadaama uu cable-ku soo dhaaraado waad ogtahay waa 50 okay iminka waxaan ogaanay inuu R1 keenaasi yahay waxaanu raadinaynaa big R1 big R2 my big R1 was 0.5 ohms markaan ka ogaaday waxaan doonayaa inaan haddana next time-ka raadiyo whole waxaan ku socdaa ZS whole complete of my resistance like waynu ognay ZS inay la mid tahay ZD plus R1 R2 ama big R1 and big R2 whatever it is
ayaa la raadinaya markaynu circle-kii dheeraa soo marro waxaan raadinaynaa ogow waa inaan raadiyaa inaanu resistance-kaygu ka badan 1.1 ohms ama in ka yar iskamaan dooranun anigu kaybulada oo intaan 1.5 haddaan iska soo xidhi lahaa resistance-kaygu dhemel buu halkaa ka noqon lahaa iyadoon lagu darin ZA external impedance-ka lagu darin ayuu R1 big R1 and big R2 cirka qaban lahaa mooru cable ku yari this is what the problem ku ka jiray inakeenu dhibaatadu naga dhacday cable-du nagu dilaan resistance-ku maadaama uu sareeyo muxuu korsanayaa cable yar oo aanad ka fikirin baad meel kulul marisay meel kale aad marisay marka ay dhasanarab dhibaatada ugu xun halku dambe ka kaco ee dhibaatadu ka dhacda waa ka marka hore golakaga kaca ma taqaan wax la golakaga kaca uu shaqeynaya marka hore laakiin uu ka daba imanaya waayo haddaanad sidan wadiiqan aanad u marin kama dheeraan karaysid inaad god ku dhacdid waayo anigu si kastan xariif u ahay oo anigu naftayda markaan mashiinkan ku qabtay iminka waan soomanay allaa igu og inta jeer uu khalad igu qabtay mid waxa ka baxay markaan xidhayay loose noqday aradka way tusay inuu aradka aanu jirin ya yani wax walba uu ku qabanaya waa mashiinka kuwada ku taskareynaya waxaynu ogaanay impedance-keenu inuu hooseeyo xagga kale isagana I think inuu ahaa daanimkeegi doono timekaagu yaro inuu ahaa 0.4 I think inuu ahaa 0.4 0.14 something 0.14 0.5 plus 0.14 I think inuu ahaa waa imisa waa 64 0.64 will you believe siduu ugu hooseeyo 1/1 tani waliba waa mana awaal aan u imka samaystay hadhow marka baawar garayno timeka damaan baawar garayno waxay tusayeen mashiinkan waxaan isu geeyay inay bolocking yihiin kale anigu waxbaan isu soo geystay imka doesn't matter what if it's whatever I call them ama qof kale ha soo qaato ama anigu aan taskareeyo because waan ogay inaan ka carro waxaan idiin sheegayo dhan dista machine qaban doonaa waxaanu eegi doonaa iyadana aan hubin doonaa external impedance gurigu dabku ka imanayo iyo unitku soo gaadhayo isna waxaanu eegi doonaa impedance-kiisanu eegi I think ma hubo laakiin waxaan u malanayaa inuu ahaa 0.14 laakiin iyagana xagga kale oo unitku imku yahay ayuu cable-ku ka baxayaa wuxuu qabanayaa office-ka laga soo qaaday oo cable-ku joogaa dabeetana kaana waan eegayaa impedance-kiisa markaan geeyo markaan geeyo aan eero impedance-ka aan ogaado dabeetana waxaan odhanayaa yes little man here sax baad u dhowdi weli laakiin ma dhowa haddaya waxaan odhanayaa sax baad u dhowdi next time-ka waa inaan eegaa insulation test insulation-kaygani iminka insulation-kaygani in yar miyuu istaabanayaa oo dabku aan iminka khaldaynin oo in yaroon waxba ahayn miyuu isu dhow yihi ama hadduu shoor dhaco for example halkan shoor ka dhaco halkanna miyuu iska qabsanaya ilaa halkan waa for example hadduu cable-kaygani saan idiin sheegay ay meel yar waxba ahayn uu isaga dhow yihi waayo inay current ku istoontaa yaa haddaad u fiirsato hadhow aanu kuma ogaan karo cable-ka laakiin horta kan insulation-kiisa insulation test-ka waxa la yidhaahdaa insulationka waxa la yidhaahdaa balkan celinaya cable-ka kala celinaya insulation test insulationku waa maxay wire-ka maxaa ku duuban waxaa ku duuban qalkaasi miyuu dhaawacayay oo miyuu isu dhowyey hadda oo miyuu isu dhowyey throughout my system iminka waan kala furayaa xaggii hore iminka waan iskaga soo xidhnay resistance-keenu eegaynay waan kala furaynaa iminka dabeetna waxaynu eegaynaa aynu marinaynaa dab xoog badan ayaynu raacinaynaa dabeetana hadduu dabkaa uu liig jiro waxay noo sheegaya mashiikan laakiin bishruud markaad taskaraynayso imika waxaa ku jira
guriga hadduu ku jiro waxaan sensitive-ka electroniga ku shaqeeyo dhan insulation testka meesha waad ka saaraysaa because iyagu ma xamili karaan voltage-kan waad isolate garaynaysaa gulubada waxaad gelinaysaa qaar caadi ah LED oo dhan waad ka saaraysaa baalkan la yidhahdo SPD-ga isna waad ka saaraysaa ama waa inaanad voltage 250 ka badan aanad ku test garaynin dad laakiin doonayso inaad 1000 iyo in ka badan aad gasho kolba siduu unitkaagu uu kuu samaynayo ha ahaado kolba unitkaagu siduu kuu samaynayo ha ahaado power ku leeyahay aniga unitkaygani wuxuu leeyahay 250 to 1000 Tomorrow, 250. So I will go also in 1000 and take her, like I don't need it. 250 is more than enough in Wishago. Markaim waxaan kala furi doonaa cable-kii xagga dabeetana kambaynu xaggan ka power garayn doonaa inagoo kan adeegsanayna ya soo mid walba waxaan ku dhufanaynaa wuxuu noo sheegayaa clear waayo isagu markuu mariyo voltage-ka intaa leeg hadduu leeg jiro million times aan u sheegno arki karin milli uu qabanaya marka wait a minute imika waxaan soo kala furay baalkeenu markii hore eegaynaynu R1 kan waxa ka soo xiriirnay labadeennii cable aynu waxa ka soo xiriirnay markii hore ayaynu hadda kala furay imika waxaynu sugaynaa hadhow markuu foolkaasi maro inaanay dhibaato dhicin marka waxaynu eegaynaa power unit-ka ama cable-ka redka ama live-ka iyo CBC-ga you must be very careful markaad machine kan qabanayso wuxuu sii deynayaa fault aad u sareeya maalkaan la geliyaa laakiin I'm doing marka waxaan taabanayaa waxaan u darayaa inuu shaqo qabto wuu ordayaa wuu raadinayaa wuxuu doonayaa muxuu soo saari doonaa intaasuu la dhacayaa infinitive intaasoo jeer buu isla dhacay infinitive ma aha oo ima sheegaya inay haystaan keebuladeydu waan ku celinayaa mar labaad wuu cararayaa waad aragtaa wuu celcelinayaa zero infinitive haddana waxaanu eegaynaa ka ku xiga kii hore waxaan eegnay CBC and live-ka iminkana waxaanu eegaynaa wuu ordayaa intaas garanayaa infinitive 999 infinitive marka hore malaa meedaan arkeen infinitive isma haystaan waxaanu ku celinaynaa haddana neutarka iyo CBC-ga You must be very careful markaad shaqada dhan qabanayso baalka uu leeyahay haddana maxaynu ku celinaynaa isna wuu ordayaa and this one is dead 99 well safe way and this one is also inkastuu system koodhaya wada yahay or to what they hold the system, 1-2 spots there and there, he can check it, but still I have to make it sure. Can no one again? 99, dead. Hi, can no one come on again? How can buy no name? 99, dead. Marka life, neuter, and all of them. waxay akhriyayaan 99 xataa 1000 fall haddaan ku dhufto no worries imika dabeetana waxaynu eegnay insulation testkii marka xaggan waxaynu haynaa little R1 and little R2 whatever you call them
لأنه waxaan taskanaynaa big R1 and big R2 taasoo macnaheedu yahay conductor-ka ka imanaya metering device-ka meesha power-ka la keenay marka waxaan eegaynaa CBC-ga CBC-ga let me on my saacadayda markaas u arko waad eegi doontaa markaas inta resistance CBC-gu yahay let me see wait let me see it properly so 22 so my big R1 big R2 is leelaat marka waxaan samaynay installation testki waxaan samaynay resistance-ki waxaan haynaa resistance-ki ama ohmski whatever it is iyo waxaanu haynaa aynu imika raadinaynaa ZS oo means ah inta isku wada dhan ilaa iyo meesha laga imanayo metering device-ka taasoo macnaheedu yahay waxaanu ogaanaynaa iminka cable-keenani markaynu power garayno ama shaqeynayna ama iminka waynu sii malaawaalna waynu ognay current-kaasi halkuu marayo maadaama aynu hoos geynay resistance-kii waynu ognay current-ku inuu isqaadayo this one waxaa barot garanayaa switches-kan ama sockets-ka breaker 16 oo B type power-ku waxa uu ka soo qaadanayaa cable-kan waxa barot garanaya 32 oo C marka cable-keengaasi waa weyneeyay si uu isaga celiyo power-ku markuu wax meesha yaalla u soo qaado waynu ognay voltage drop dhaco marka waynu ognay resistance-keena aynu ataagayna inuu ahaa remember 1.1 inuu ahaa loop impedance-keenu raadinaynaa aanu ka badan marka imika waxaan hayaa xaggaasoo ahayd 45 mise something ahayd iyo 20 xaggaasoo 50 ahayd iyo kanoo ah 20 waxaan ku hooseeyaa weli 1 marka I know not haddanen but where's come to where's hadday timaado inaan safe ahay because waxaan hoos u dhimay anigoo ku fikiraya voltage drop-ka dibadda ka dhici karaa halkan 32 ka gelin lahaa waxaan geliyay 16 maxaan u geliyey waxaan calculate gareeyay power-ka circuit-kayga inuu doonayo inuu qaato maximum wuxuu qaadanayaa 6 computer iyo 3 marawaxadood ama 8 computer iyo 3 marawaxadood kama badan karaan 2000 ama 2400 maximum 2400 markaan calculate gareynona waan tusi doonaa because marka hore aan calculate gareeyo power-ku u baahan yahay cable-adana qaadayaan I calculate myself dadna imka direction baan ku socdaa inaan wixii ognama dhici karin resistance inuu low noqdo duu resistance ku hay noqdo waan ognay cable-ku dhibta u geysanayo inuu hadduu dhuubnaado iyo hadduu dheeraado labadaba inuu resistance-ku adkaanayo deetna aamku sanaya mar deetna uu kululaanayo iyo hawadii dibadda that's problem-ka cable-keenu ka hadlaynayna haysa in yarna waynu ka taataabanayna just general idea halkaynu maanta taagannahay inaynu aragno marka iminka waxaynu eegi doonaa intaanaynu power garayn waxaynu eegi doonaa inaynu isu geyn doonaa waxaynu raadinaynay oo dhan ayaynu isu geyn doonaa little bit again installation test done waynu samaynay maxaynu ku samaynay waxaanu ku samaynay 250 volt waxaanu ina tusay inuu qabanayo daayin ka badan xataa waan idiin sheegay kun baynu ku dhufan lahayn laakiin waxaan ku dhufannay kaa waxaanu calculate garaynay big R2 ama iskaba go ama big R1 wuxuu ahaa waxaanu calculate garaynay resistance-kiisna guriga oo R1 oo oo ZS marka waxaanu raadinaynay ZS marka ZE waynu haynaa ZE-deenu waxay noqotay intaa ZS-keenu raadinaynaa marka which is complete all the system hadday wax dhacaan marka la isku wada xidho marka ZE-geenu waxay ahayd intaa
liter R1 liter R1 dhacada guriguna wuxuu ahaa 0.51 aan khaldanayn kala isu geeyo 37 because waxaan isticmaalay cable weyn baan kuwan isticmaalay saan resistance-ka u dhimo waxaan ka cararayaa voltage drop kuwana cable-ku wax badan ma qaadeen marka halkaynu inagu intaa ka helay hoos baynu aad u gelinay because cable-yada waxaanu isticmaalno xataa hadduu noqdo 1.79 waa okay waa inaanu ka hooseeyun bay ahayd 1.1 laakiin inaku weli meel fiican baynu maraynaa in fluctuation ee jiray xataa hadduu 4 ama 5 noqdo we very good marka waxaanu ognay insulationkeennii waa sax waxaanu ognay cable-ka ka imanaya metering device-ka ee unit-ka soo fiirgareynaya which is ZE external impedance waynu ogaanay waxaanaynu ogaanay calculation-kii guriga liter R1 and liter R1 whatever you call them kaana waynu qabanay markaas ZS-keenu isugu geynay intaasay noqotay systemkan wuxuu u shaqaynayaa inuu xidhnay TNS baynu u xidhnay systemka TNS-ka waayo ground-kana waynu eegi doonaa ground-ku waa rubbish waynaynu ognay ground-ku inuu resistance-kiisu aad u sarreeyo bir baa la geliyaa yar oo aan shaqayn laakiin markuu systemku yahay district power-ka uu yahay waxa fiican in TNS-ka la isticmaalo taas ugu roon oo la isku daro macal dhulka la geliyo marka imika waxaanu u baahannahay inaynu cable-keennii power garayno markaynu power garayno waynu ognay horta inaan short dhici karaynin breaker-kuna is goyn karaynin taa meeshaynu ka saaray oo life-ka inta laga sii shaqeeyo waa inay ku erkay inta yimaadaan the boy will call in them farsamada gacanta markay dabka ku sii daayaan meel walba meesha qaraxdun bay eegaan ee istaba marta resistor ma eegaan CBC-ga ma eegaan CBC wax walba waa la sii dabagelaya marka anigu waxaan meesha marinayo oo dhimi waxa weeyaan protected by 16 waxaa ilaalinaya maalkayga 16 P-type breaker P-type breaker shaqadaasaan u dirsaday why 32 bay ahayd inaan geliyo laakiin 32 waxay iga hor joogsanaya anigoon hubin oo aan mar walba u joogayo because you have to change your mind wax walba waa habtan manipulate garaysa hadduu voltage drop dhaco inuu gooyo 16 iyo inuu 32 gooyo waxa hawl yar inuu 16 gooyo that's the idea ka dambaysan raawdiga laakiin 32 qaadan kara there's no problem that's my favorite breaker-ku marka circuit-ka la eegayo waa okay circuit-kaygu waa radio ama radial taasna saasaynu ogaanay marka iminka absolutely inuu short dhaco iyo inuu breakers gooyo iyo waxaas waa out laakiin weli kamaan bixin reer soonkii weli remember waxayna daba yaalla this little fella isagu cid ma yaqaano haddii xataa intaan wadwaday wax dhaceen it will catch me no chance waynu eegi doonaa marka imika waxaan u baahanay why am you 16 power-kayaan calculate gareeyey gebigiisaba 1400 watt divided by 230 how much it will be yeah I have to punch my little calculator, then we'll see. I think it will be less than 10 or maybe 8 amp, but still حتى 10 waan ku shaqayn karaa laakiin to be honest waxaan intusaun inaan anigu idin soo weeye 1400 sorry exactly what I'm saying less than 6 amps way 6 amp yeah that's my design marka waan design gareeyay waan ogay IB-gaygu intaa uu ka hooseeya laakiin waan sameeyey IN-kii waan sameeyey IB-gii waan sameeyey systemka dhan waan soo maray cable-ku waan sameeyey
كيبلكيgu wuxuu qaadi karaa hadduu doono 3 am halkan wado xataa 30 am uu qaadi karaa waayo waa 2.5 pure cover maaha waa cover aan hubo waan tusi doonaa oo jilicsan oo pure cover maaha tan lagu wax ku khaldan yihiin ee Sacuudiga iyo waxa la yiraahdo waayo kuwa Sacuudiga waxba ku khaldan isla pure cover ka hadaan imika tuso kun jeer baan sidaa oranaya ma jabayso kan kale laakiin markaan 10 jeer ama 5 jeer aan kaadho way kala cararaysaa taas waa inay barxantay marka taana markay barxantaad ogtahay inay barxantay aad iska leeday marka si kala uga wareegtaad kaano aadu in communication aadu compensate garan kartaa jirta because wax walba waxaanu niri we have to manipulate dayaxa hadii la waayo caada lagu socdaa adigoo safety priority ka dhigaya we have to manipulate it marka iminka waxaan power gareyn doonaa systemka dadana markaynu power gareyno shidmo uu shaqeeyo waxaanu u diri doonaa machine-ku inuu u diro hadaba waxaan shaqeeyaan meesha xiriyaan CBC-ga iyo maanta oo dhan bolankan akhriyay ma shaqeeyaan yaas wuxuu oranayaa waxaad shaqeysay haddii maanta fool dhaco intaasoo aanba isku qaadayso marayso doonaysa halka marto because system-ka looga waanu ka saanay remember baashi caruurta ku ciyaaraysa si soogayna ka dhiganaa ma leexadi kulba dhinac qabanaysay taasaan hor keeni karaa waayo markay resistance hooseeyo voltage-kaas qaadaya marka resistance-ku sareeyana resistance-kaas qaadayo voltage-ka low noqonaya amka low noqonaya marka waa mar walba resistance-ku low noqdaa marka imika waan power gareynaa markaan power gareynaa we'll see shaygu wuxuu noo sheegayaa voltage-ka meesha inoo maraya ko markaasna waxaan weydiinaa okay hadduu fault waxaan ka sii faalinayaa marka halkaas aqoontu ku jirta halkaas leeyahay bidankiis waxaan ka sii faalinayaa aan sii predict garanayaa sii faalinayaa hadduu soo dhaco inaanu dabkacayn daas waxaan oo dhan wax loo sameeyaa calculation oo dhan hadday wears kan wears xaaladda ugu xumay hadday xaaladda u xun noqoto inay badbaado boorta kabiinkani gurigan jeengada iyo looxdiyo buushka laga sameeyay inuu badbaado that's the main thing marka imika waxaan power gareynaynaa systemka deetana we'll see sariflaha cabdilaahi cabdiraxmaan cismaan ka sarif oo adigoo jooga goobtaada shaqada gurigaaga iyo goob kasta si fudud uga sarifo sariflaha cabdilaahi cabdiraxmaan cismaan oo qiimo macquul ah kuugu sarifaya haddaba telefoonada sarifka lacagaha waxay ku qoran yihiin shaashada ee hore uga sarifo